assalaamu calaykum walaashayay iyo walaalkayow in yara joogsada oo dhageysta. Waxaan doonayaa inaan idin sheego sir weyn. Haddaba waxaad isweydiinaysaa sirta weyn maxay tahay? Haddaba sirtan kuu sheegaya waxay tahay mar walba aad gurigaaga ka baxayso ama aad gurigiina ka baxayso waxaad akhrisataa qul a'uudu birabbil naas, qul a'uudu birabbil falaq iyo qul walle iyo aayad kursida. kadibna intaad akhrisato sida intaad u akhrido sidaa dheh sidii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu dhihi jiray intaad akhrisato sidaa gacmaha ugu tuf kadibna jirkaaga saa u mari. kadib jirkaaga mari. haddii aad akhrisato waad ismariso markaad gurigaaga ka baxayso iyo markaad seexanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa xijaabayaa dhammaan xaasidiinta ishooda. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa xijaabayaa sharka jinka iyo sharka shaydaanka iyo sharka insiga ayuu ilaahay kaa xijaabayaa. wax walbo shar wada oo balaayo wada ilaahay kaa xijaabaya. anigu waxaan doonayaa sirtaa weyn inaan kula wadaago. mar walba aad gurigaaga ka baxayso akhriso. mar walba aad gurigaaga ka baxayso akhriso. waynu ognahay dadku badanaa iminka markay tagayaan ama ma garanaysaa ay seexanayaan inta adkaarta akhrisata iyo inta ma garanaysa quraanka akhrisata ee ismarisa way yartahay. mar walba aad gurigaaga ka baxayso akhriso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa xijaabayaa sixiroolayaasha sixirkooda. ilaahay wuxuu kaa xijaabayaa ma garanaysaa wixii balaayo iyo dhagar ku walaaqaya ayuu ilaahay kaa ilaalinaya. marka waa sir muhiim ah oo aan kula wadaagay. waxaan kaa codsanayaa walaalkaaga islaamka ah inaad sii gaarsiiso muuqaalkan, adigana ajar bay kuu tahay. haddii aad dar ilaahay aad u sheer garayso ajar bay adigana kuu tahay. asxaabtayda qaaligaa aad baad u mahadsantihiin. waa anigoo ah maxamed wardi cali oo idin leh ilaahay dhammaantiin ha idin xifdiyo.